kulan wanaagsan dhammaantiinba waa barnaamijkeennii qubanaha VOA. barnaamijkeennan oo idinla socodsiinayaan anigoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar iyo Caashe Ibraahin Aadan waxa qodobada aan idinku hayno kamid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo la hadlay VOA-da kadib kulankii dadweyne ee isku xirayay Muqdisho iyo Minnesota ay VOA-du qabatay Sabtidii la soo dhaafay. dalka Kenyana gaadiid iska fudud ayaa wax ka tara in gabdhaha saboolka ahi ay iskuulada sii dhigtaan ama ay ka hadhaan. kadib ku dhawaad 30 sanadood oo uu hawada ku jiray ayaa dayax gacmeedka fogaan aragga ee Hubble uu wali si xoogan u shaqeynaya. qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idinku haynaa barnaamijka qubanaha VOA ee toddobaadkan. toddobaadkeena dhaafay laanta afka Soomaaliga ee VOA-du waxa ay martigelisay kulan dadweyne oo isku xirayay Muqdisho iyo magaalooyinka mataanaha ah ee Minneapolis iyo St. Paul ee gobolka Minnesota. dhalinyaro ku kala sugan Mareykanka iyo Muqdisho ayaa su'aalo kulankaasi oo si toos ah loo tabinayay ku weydiinayay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaanay dadku si toos ah ugala socdeen boggeena voasomali.com iyo bogga aan ku leenahay Facebook. kulankaasi kadib ayaa madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow ayaa madaxweynaha wax ka weydiiyay sida uu arkay kulanka dadweyne su'aalo kalena weydiiyay. madaxweyne wuxuu ahaa kulan dadweyne oo dadweynihii gaar ahaan dhalinyaradii aan ka soo xulay Muqdisho iyo kuwii Minneapolis ay u soo fadhiisteen barnaamij noociisa waxaan isleenahay kii ugu horeeyay malaha guud ahaan sidoo aragtay barnaamijka barnaamijka Yabarow aad iyo aad u sareeyay technology la isticmaalayna waa sareeyay ka soo qaybgalka labada dhinacba xagga iyo intabana aad iyo aad ayuu u sareeyay waa ku faraxsanahay dhalinyaradu in ay su'aalo dhiiranaan badan ay ka muuqato ay weydiiyeen su'aalo rajo badan ay ku jirto dad maxaan ku dhahay aad iyo aad rajadu aanay ka dhiman inay yihiin dhalinyarada aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay marka guud ahaan barnaamijku barnaamij aad u fiican oo bilowday oo marar kale badan inaan ku soo noqdo aan jecelahay waaye su'aalihii dhalinyaradu ay ku weydiiyeen maxaa kuugu xiiso badnaa ama si gooniya kuu taabtay wallaahi dhammaantood xiisay lahaayeen su'aalaha ay weydiiyeen aaday u fiicnayd gabadhii Sundus ahayd su'aashii ay weydiisay oo gabdhaha fursad maxaa loo hayaa ahayd wiilkii kale ee Xuseen ee maxaan ku raadaay xariyaha qaxootiga ka tagay ee Mareykanka hadda jooga ee muxuu ahaa waxay ahayd qiraalkii iyo maxaan ku raadaay sida ay u qireen in dhalinyaradu dalka horumar uu ka dhacay laakiin duruufo adag ay jiraan intaba iyo waxa kale aad iyo aad ii xiiso geliyay sida ay u jecel yihiin inay soo noqdaan laakiin waxyaabaha culaysyada dalka ka jira ee xoogaa qaarkood shaki ka qabo laakiin kulli niyadooda inay inta timaado ay rabto ay tahay ayagoo dhalinyar waliba annaga waxaan isleeyahay dadka waaweyn oo waayeelka unbaa muxuu ahay daltabyadu ay haysaaye dhalinyaradu ma haysaan laakiin hadda dhalinyaradii inay daltabyadii inay dhalinyarada ku badan tahay baan aragnay waa rajo aad iyo aad u fiican oo ayadana aad ii farax gelisay ta u dambaysa waa su'aal ka duwan wixii dhalinyarada iyo caawa aanu ka hadalnay oo dad badan ay isweydiinayaan waa su'aasha ku saabsan Soomaaliya iyo Somaliland in badan oo muddo ah ayaa hadda la soo daba joogay shirarkii idin socday Somaliland xaggee marayaan maxaa rajo oo socda maxaad isku haysaan maxaa imika miiska idin saaran maxaa rajadu tahay in la isku soo noqdo ama la kala go'o oo suuqa la kala galo Cabdiraxmaan horta waxaan rabaa inaan ku sheego dalkan dhibaato xoog leh ka dhacday dhibaatadaasi laba isugu jirtay mid dawlad qaran oo dalka ka jirta ay geysatay iyo mid dagaaladii sokeeye ay geysteen dhibaatada Somaliland ama waqooyiga Soomaaliya dhibaato dawladii bariga dalka ka jirta ay geysatay waa dhibaato aad iyo aad u xanuun badan waaye dad badan oo Soomaaliyeed ayaa lacagtii cashuurta ee laga qaaday qalabkii lagu iibiyay lagu dilay si aad u dhib badan waliba xanuun badan arrin xanuunna waaye dabcan dalkoo dhanna dhibaatadaas way ka dhacday laakiin waa loo sii kala badnaa gobollada waqooyi dhibaatadu aad uga badneen wixii dhacay markaan soo xasuusanno wayna gubay waanan ka xunnahay waana aad iyo aadaan u murugoonaynaa dhowr mar horena waa iri waana ku celinayaa waa arrin xanuun badan ay ahayday dawladda berigaa joogtaana samaysay maanta dawladda joogta anaa madax ka ah magaca dawladnimadana aad iyo aad ayaan arrintaas uga xunnahay mana rajaynayno Soomaaliya inay dib ugu soo noqoto dawlad dambe oo waxaasoo kale ay ka suuroobaan wax kastoo yimaadaba cudurdaar looma heli karo saxna ma in dadka in lagu laayo xanuunkaas dhacay wuxuu u baahan yahay waqti dheer oo biskoosho ah oo soo biskooda u baahan yahay waxa socotaana waa biskoodi Somaliland hadda waa meel nabada horumar badan ka jira dadaalo badan socda
annaguna duruufo gaar aan ku jirnay hadda koonfurta waa ka soo baxaynaa wadahadalku waa bilowday waxaan qabaa in la wada hadlayo sideeda horumarkay ka mid tahay la gaaray aad iyo aad ayaan rajo badan u qabaa in guul la gaarayo laakiin ma degdegsanin degdegsiinyo soomaalidu koonfurta joogta xukuumadda geedkii rooroor lagu karo roorooraa looga soo degaayo inaan degdegna ma doonayno midnimada in la soo celiyaan rabnaa ma ka tanasulin mana ka tanaasulayno laakiin waxaan rabnaa in loo soo celiyo si raalli la isaga wada yahay oo mar dambana aanay ku dhumi karin marka qadiyadda somalilan way taagan tahay waan daba soconnaa weli kamaanan quusan mana la kala tegaayo in la ismacsalaamay wax la yiraahay ma jiraan in la wada jiraa jirto oo si la israbo ayadoo la israbo la wada jiro in la isjujuubay Nigeria waa dal waajahaya falal guracan oo dhinaca argagixisada ah dhinaca waqooyi ee dalkaasi mintidiinta Boko Haram ayaa sii wada dilka afduubka iyo in dadka ay barakiciyaan laakiin waxaa jira waxyaabo aysan dadka ka qaadi karin sida uu magaalada Maiduguri ee gobolka Borno uu kaga soo waramayo wariyaha VOA-da Chika Oduwa heesaaga reer Nigeria ee Nayatusi ayaa xiran madaxweyne Maxamedu Buhari mar walba wuu xiran yahay koofiyadan caanka ah magacyo badan ayaa loo yaqaan sida Fela Hola Iyadi koofiyadahani meel gaar ah ayay kaga jiraan dhaqanka boobka ee Nigeria waxaana dhaqankan uu ka bilaabmay magaalada Maiduguri ee gobolka Borno ee waqooyiga Nigeria raggani waxay ka yimaadeen deegaanka Bama waxay tolayaan koofiyadaha dhaqanka kuwaasi oo boqolaal sano ka hor laga bartay reer Bama ururka Boko Haram ayaa ku dhawaad bulshadaasi dabar gooyay xaaskaada ayay ka qaadanayaan ilmahaada ayay qaadanayaan waxay kugu qasbayaan inaad iyaga ku biirto hase yeeshee nimankani Boko Haram kuma biirin mana joojin tolista koofiyadaha waxaan ku koray dadka oo koofiyadahan tolaya sidaasi ayaan ku bartay waad ku celcelinaysaa khalado badan ayaad samaynaysaa laakiin muddo kadib waad baranaysaa muddo 12 sano ah ayaan hadda khabiir ku ahay naqshadda gacmaha ayaa lagu sameeyaa magaalada Maiduguri qiimaha koofiyaduhu waxa uu ka bilaabmaa $20 koofiyadaha badankooda waxaa halkan looga qaadaa magaala madaxda Abuja halkaasi oo qiimo sare lagu iibiyo sida $50 iyaga oo mararka qaar gaara ilaa $180 Sani Maxamed isagu uma dhalan Bama hase yeeshee waxa uu doonayaa inuu koofiyadahan u xirto aroos dhawaan dhici doona koofiyadani waa kuwa adag waana sababta dad meelo kala duwan ku nooli ay u iibsadaan koofiyadani dadka ayay midaysaa dadka dukaamada iibiya ayaa sheegay in koofiyadaha dhaqso loo iibsado xirashada koofiyadan waa sharaf laba qof haddii midkood xiran yahay midna uunan xirnayn farqi baa u dhaxeeya haddii xitaa aad aragtid ilmo yar oo xiran waad qadarinaysaa Ahmed Isa Gondi waxa uu qoray 40 buug oo koofiyada Bama ku saabsan waxa uu doonayaa inuu casriyeeyo samaynta koofiyadaha waan taageeraa wax kasta oo koofiyadan ku saabsan laga soo bilaabo qaabaynta dhaqmada iyo wax kasta oo qofka ka ganacsada ka dhiga mid faa'iido dhaqso ah ka hela maalgashigiisa magaalada Maiduguri raggani way sii wadayaan tolista koofiyadahan dhaqanka waxay sheegeen in dagaalyahaniinta Boko Haram ay burburiyeen guryahoodii Bama ku yaalay laakiinse aysan dabar goonin koofiyadihii Bama marka iskuulku uu jiro 10 kiiloomitir oo socda gaadiid ay ku tagaana aanay haysan gabdhaha ka soo jeeda qoysaska saboolka ah ee galbeedka Kenya waxa ay ka haraan dugsiyada waxbarashada taasoo u horseedi karta inay iyagoo yaryar caruur dhalaan taasoo iyada lafteeda hoos u dhigi karta fursad ay u heli karaan in ay saboolnimada ka baxaan laakiin waxaa jira farsamo jaban oo ay baahida kaga bixi karaan sida magaalada saddexaad ee ugu weyn dalka Kenya ee Kisumu ay kaga soo waramayso Leni Ruvaga qoyska reer Nagala waxay isu diyaarinayaan inay quraacdaan maanta waa maalinta koowaad ee taramka saddexaad ee iskuulkeeda Liz Luceno oo ah gabar 16 sano jir ah Luceno inay gaarto iskuulka waxay markii hore ku qaadan jirtay qiyaastii 10 kiiloomitir hase yeeshee bashkalootigeeda cusub oo ay ugu deeqday hay'adda fadhigeedu yahay Mareykanka ee World Bicycle Relief ayaa hawsheeda ka dhigtay mid aad ugu sahlan qoyska reer Nagala waa beeraley waxay bishiiba helaan $30 oo dollarka Mareykanka ah lacagtaas waxay ugu filan tahay cuntadooda fiiga iskuulka iyo gaadiidka gabdho badan ayaa iskuulka ka tagay kadibna uur qaaday Luceno ayaa ka hadlaysa dhibaatada ay gabdhaha kala kulmaan ragga saaran mootooyinka markay u suugaynayaan iskuulka
badanaa waxay nagu joojiyaan waddada marka aanu lugaynayno waxay noo sheegaan inayna qaadayaan kadibna waxay nagu qasbaan inaannu iskuulka ka baxno taasina wax fiican maaha. ayna ambulwa waxa uu macallin ka yahay dugsiga sare ee bukewa ee deegaanka kakamega wuxuu xubin ka yahay guddiga muraaqabeeya muutalayda iskuulka. ambulwa waxa uu og yahay dhibaatooyinka ka dhasha saboolnimada gaar ahaan hablaha yaryar. wuxuu sheegay inay adag tahay in gabdhaha ay ilaashadaan baaskiiladooda. baaskiilo badan ayaa hallaabay kadib markii ay qoysaska saarteen alaab culus. way jabayaan kadibna familka ma awoodaan inay dayactiraan. taas macnaheedu waxa weeyaan in marar badan aysan gabdhaha adeegsan karin baaskiilada. hay-adda World Bicycle Relief saldhigeedu waa Chicago waxay baaskiilada dadka u sii marsiisaa hay-adda World Vision. sanadii 2015 waxay mashruuc ka samaysay deegaanka Kisumu ee Kenya. qiimaha baaskiilada oo loo qaybiyay dadka baadiyaha waxa uu ku kacayaa $180 iyadoo la kaashanayso deeq bixiyaal caalami ah. waxa ay hay-adda qaybisay 7,000 oo baaskiil. intooda badan gabdho ayaa la siiyey. Peter Wachulo oo ah isku duwe barnaamij ayaa sheegaya in baaskiilada ay wax badan tareen nolosha gabdhaha, laakiin waxa uu leeyahay deegaanada mashruuca laga sameeyay oo 100 kilomitir u jira Kakamega weli waxaa ka jira dhibaatooyin. caqabadahan haysta ayaa ah kheyraadka si baaskiiladan ay u gaaraan bartilmaameedkooda. inta aan rabno in aan daboolno meelo badan waxaa xadidan kheyraadka, laakiin waanu fiicannahay xilli kheyraadkeennu uu xadidan yahay. sanadkii hore Luis Luceno muddo kooban ayay iskuulka ka hartay sababo la xiriira gaadiid xumo, laakiin maadaama ay hadda haysato baaskiil waxay haysataa fursad ay ku dhammaysan karto iskuulka isla markaana ay xitaa ku raadsan karto riyooyinkeeda mustaqbalka. waxaan jeclaan lahayn in barnaamijkeena qubanaha VOA toddobaadkan aan ku soo xidhno inaga oo eegayna hawada sare. dayax gacmeedka fogaan aragga ee The Hubble Space Telescope waxa uu shaqaynayay tan iyo markii hawada sare loo ganay sanadkii 1990 isaga oo hawada sare ka soo gudbinayay 100,000 oo sawir oo cajiib ah. laakiin dayax gacmeedkan waxa uu leeyahay shaqaale daryeela sida ay ku soo waramayso wariyaha VOA-da Jo Ellen McBride. dayax-gacmeedka The Hubble Space Telescope ayaa ka dhigay dadka adeegsan jiray in ka badan 20 sano mid indhaha iftiin zaa'id uga fura inta uu jiro satellite-kii hore. NASA ayaa leh 80 injineero ku dhowaad. qayb ka mida shaqadayada halkani waa inaannu derisno dhibaatooyinka laga yaabo inay dhacaan oo aannu raadinaa waddooyin aannu ku shaqayn karno amaba lagu xallin karo si markaasi aan dib ugu celinno sida ugu dhaqsiyaha badan. xirbixiyeennada caalamka ayaa dalbanaya sawirada Hubble marka isbuuc kasta agabka lagu fiiriyo ayaa ka soo buuxdhaafsama liis ay tahay in la dhammaystiro. qaybta adag waxay tahay in la isku dayo in la adreso wadiiqada ugu muhiimsan ee lagu sii shaqaysiin karayo Hubble. ma rabno inaan iska fadhino meeshan oon waxba samaynin. xogaha laga helay Hubble ayaa cirbixiyeennadu u ogolaaday inay eegaan inta adduunka uu jiro oo ay sidoo kale daawadaan daruuraha galaya Jupiterka oo ay sidoo kale qaadaan sawiradii ugu horreeyey ee meeraha iyo wareegtooyinka ku aadan abuuritaanka xidigo cusub. Hubble ayaa shaqaynaya waxayna NASA ay doonaysaa in ay shaqadiisa ku sii ballaariso ilaa iyo 5 sano oo kale oo dheeraad ah. waxay la tahay inaan ku eegi karno Webb iyo Hubble agab dhammaystiran. Hubble iyo James Webb waxay hayaan 2 shaqo oo kala gedisan, labadood oo la isku haystaana waxay samayn karaan shaqo awood badan. agabka James Webb ayaa hore looga tijaabshay dhulka, balse cirbixiyeennada ayaa xiise gaara u qabay in arkaan waxay labadan oo wada jira ay soo saari karaan. intaas ayaan ku joojinaynaa barnaamijkeeni qubanaha VOA ee toddobaadkan oo aadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. aan si idin xasuusino ciddii uu sheegay kulankii dadweyne ee VOA-da ay ku qabatay magaalooyinka Muqdisho iyo Minnesota waxay ka daalacan karaan boggeena voasomali.com ama bogga aan ku leenahay Facebook-ga. inta aan toddobaadka dambe kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabad gelyo.